بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan doonayaa inaan dhowr kalmadood idin idhaaho faallada iyo su'aalaha culculus iyo sheekada mawjadaha dhaadheer iyo waxaas way noo dambayn doontaa oo de ma anigu bari ma noqonayo waan joogayaa in muddo ah wadankana waan ku soo wareegi doonaa marka kubadda ciyaarteedu waa gelinka dambe marka wax badan baa inoo dhinaan doonaan maanta inaan halkan ku dhammayn karayn waxaan doonayaa inaan dhowr amurood in taabsiyo iska dabna qoysa ta ugu horeysa waxa weeye horta madaxweynaha wadanka oo casuumadda siiyey inaan ka gudoomay inaan mahad weyn u jeediyo madaxweynaha wadanka Somaliland ayaa ugu horeeya in salaantana aan ka gaarsiiyo mahadnaqana aan gaarsiiyo iyadoo ummaddu maqlayso xafiiska madaxweynaha xirsi wasiirka madaxda ka oo shaqada hawl isaguna qayb weyn ka galay isagana waxaan doonayaa halkan mahad weyn inaan uga jeediyo saaxiibkay iyo walaalkay wasiirka Galjire oo madax u ahaana dadkii qaban qaabinaya arintan oo isagu gacanta ku hayana waxaan doonayaa si weyn inaan u salaamo waan uga gudoomo aad baa dadku isku soo dhibeen aniga way damaqday way taabatay hadalku waan jecelahay inaan hadlo laakiin caawa waxaad moodaa hadalkii inaan xogaa ku marganayo sababtuna waxay tahay wax dhaqaajiya ayaan arkay oo dadka ayuu soo baxay wax sharaf weyn leh waxaad kalon jecelahay inaan ku daro salaanta ambassador Dr. Maxamuud Jaamac Sifir oo halkan aan joogin oo isaguna kamid ahaa dadkii qaban qaabadan aad u bilaabay oo sheekadii ugu horeysaba isaga ayayna dhexmartay in lama joogo caawa Nairobi waxa uu qaran ku leeyahay ku haya laakiin salaanta isagana inaan gaarsiiyo iyo mahadnaqa ayaan doonayaa waxaan raacinayaa intaas dadka sharafka leh ee diyaarad intay soo kaxaysteen berbere yimid oo dadkii baarlamaanka ku jiray ay ku jiraan guurtida dadkii ku jiray ay ku jiraan dhalinyaradii ay qaar ku jiraan salaadiintii ay ku jiraan dadka diyaaradda soo kireystay ay berbere iigu yimid anu waxaan islahaa baabuurka xagga dambe aad soo qabsatid baan islahaa waxa weeye waa arrin aad iyo aad ii taabatay waa iyaguna way mahadsan yihiin dadkaa sharafta kale ee halka iigu yimid iyo dee intiina ballaaran ee dee halkan airportka u soo baxay rag iyo dumar iyo dhalinyaro cid walba leh iyadana idan salaamo ayaan aad u jecelahay sababta anigu aanu imid Somaliland sabab badan baa jira laakiin ta ugu weyn baan doonayaa inaan idin sheego haddii ay su'aashaasi idinku jirtayna dee anu mar baan ahaan jiray wariye marka hadayna waxoogaa idinka horeeya laga yaabaa waxa weeye horta dee wax kaa weyn markaad u timaado adiga qof ahaan wax kaa weyn markaad u timaado laba amuurada kugu waajiba kow waxaa kugu waajiba inaad dhegahaaga furto oo dhegaysato waa wax kaa weyn ayaa ku hor yaala iyo inuu afkaagu xidhnaado oo aad attentionkaagu au saaran yahay dee waxaa kaa weynee ku hor yaala sidaad u fahmi lahayd ee aad u dhegaysan lahayd waxaa weyne muxuu yahay Somaliland waxay ahaan jirtay wadan ayay ahaan jirtay intaan gobonimada la qaadan wadan bay ahaan jirtay oo magacu shalay muu dhalan magacu waa dad baa jira qaran baa jira madax baa jira de marka intaasiba aniga way iga weyn yihiin oo dadkii aniga ay dhalay jad on taaban karo halkay ku aasan yihiin ugu yaraan 200 sanadood ayaa ku aasan Somaliland magaalada Gabilaa agteeda ku aasan de marka dadka dawlad sidaasa iyo ummad sidaasa iyo dadkii ku dhalay kuwii waqti hore tagay laakiin de dhiigooga iyo maskaxdooda iyo ficilkooga kugu jiro markaad u timaado iyo ummadda ballaaran Somaliland ku nool aniga wax iga weyn weey marka waxa igu waajiba inaan darso inaan dhageysto inaan la sheekaysto inaan noloshoodu siday tahay hamadoodu siday tahay inaan si wanaagsan u fahmo wax badan xagga aqliga iyo maskaxda waan ka ogaa wax badan ma wadanka ka qoray de waan ku dhashanay wadanku hadaad ku dhalatood ku ababtayna wax ma aha waxaad iloobi karto laakiin waxyaabo badan baa iga dambeeyay marka inaan dhageysto oon xabaalihii soo siyaarto oon qulwallaha u akhriyo salaadiinta iyo baarlamaanka dadka ku jira iyo dawladda madaxdeeda aanu si wanaagsan u sheekaysano anna war baan buuxaa oo adduunyadan wax badan ka ogahay soo hadda maadeen halkana war buuxa ayaa yaala laakiin horta waxaan ku horeynaa idinku inaad ii warantaan anu waxaan ku tala jiraa anigii cinday la socota in aanu saylac ilaa ceerigaabo marno ayaa programka noogu jira Hargeysa iyo Gabilaa iyo Boorama uun ma aha dhulku wuu ka ballaaran yahay intaas in markaa jaamacadihii lala hadlo dadkii la soo arko waxay ku nool yihiin everyday life noloshoodu siday tahay si markaan halkan ka tagay adduunyada aan uga waramo
dadku sida yihiin iyo noloshu siday tahay iyo hamadu halkay gaarsiisan tahay iyo waxa lala qaban karo warka buuxa waanad haysaa dad doonaysa inaad adduunyadii la sheekaysato marka horta sidaasaan u imid aad iyo aadna mar labaad aan ku celiyay waxaan mahad u jeedinayaa dadka madaxda wasiirka labada wasiir ay horsocdaan cuqaasha salaadiinta iyo baarlamaanka dadka madaxda ka iyo meeyarada magaalada iyo dhalinyarada iyo rag iyo dumar halkan u soo baxay dadka aanu iskuulka ku wada jirnay camuudan kubadda wada ciyaari jirnay baan maanta arkay anigoon 40 sanadood ku dhowrag marka de wax qalbiga uu garan karo miisaanka caynkaas weeyo afku aanu buuxin karin marka intaasaan doonayaa inaan idhaaho kugu horeysiiyay anigu isdhegeysta ciidiga BBC arrin essential jirta wariyana wada han jirtay baarlamaankii miyaad iska cashisay Soomaaliya number 2 Somaliland in badan baad wada ogeedo aad oran jirtay war inaguma filo walaalkeeno bukayeen ka tagine Soomaali weyn aynu baadi doonee imaka ma waxaad u soo jeesatay goonistaanka Somaliland laba su'aalood weeye su'aasha hore horeba waan u sheegay idaacadaha laga sheegay waraaqdii aan qoray waa la sheegay anigu bari hore markaan ka soo noqday xamar bishii October baan xamar ka soo noqday baarlamankii markaan arkay hawshiisu siday tahay dad wanaagsan way ku jiraan baarlamanka oo aqoon leh way ku jiraan oo sharaf leh laakiin 275 aan markaan arkay sida uu shaqeynayay nidaamka yaala hawlo kale ayaa lagu jira hawlo qaran ma arag inteeda badan anu waxaan jecelahay hadii aan madaxda ka noqonay madaxdeeda ama madaxweyne baan isku soo raxay inaan wax ka qabto oo wax ka saxo dhibaatooyinka ugu waaweyn halka yaalaan waa biyo la'aanta cudurka gaajada wadooyinka xunxun shaqo la'aanta dhalinyarada haysa hawlaha caynkaas weeyo ummadi halkay ka kacdo aan bay ku jabto marka baarlamaanka anigu sidaas ayaan uga tagay gudoomiyaha baarlamaanka muqdishona waan u sheegay warqadii way qoran tahay taas waa taas oo waa la ogyahay adduunyaduna way ogtahay idinkuna ay ogtihiin baan ayaan filaya Somaliland arinteedu waxa weeye arin aan marnaba indhaha laga qarsan karin anigu intaanan iman muddo badan waanan la doodaa Somaliland oo de xaq baan in la doodo waayo wadankan ku dhashay way wadankuna xaq buu leeyahay xaq baan ku leeyahay marka doodaas way noo socotay laakiin anigu intaan hadlayay hadda dib u baadhaan waxaad garan doontaan in had iyo jeer ku dadaalayay adduunyada horta inay u garto Somaliland waxay qabsatay in loo garto ya oo aan meel kale loo soo marmarin iyada directly loola hadlo dadkan waxay qabsadeen iyadoo adduunyada hareeraheega ka xigtay burbursan tahay burburayso waxay qabsadeen in loo garto deetana abaalkeegii la siiyo anu 20 sanadood ayaan arintaa ka hadlay waana qoran tahay waxaan maanta cusub oo soo saarayo ma aha waxaan se jecelahay madaxda Somaliland iyo ummadda Somaliland warkooga horta inaan dhageysto waxaan idin war baan buuxa anigu wadankana war buuxa ayaa yaala oo ballaaran oo gundheer nin reerkiisii ku soo noqday horta inuu dhageysto reerkii waxay ku hadlayaan sida yihiin ayaa waajib ah aan wax ku qaato aniguna waxaan ku dari karaya aan ku daro laakiin anigu kollayba Somaliland meel aan kaga tagi karaana ma jirto siday doontaba ha u dhacda adduunyadu waa halkii Ilaahay iga abuuray dadkan soo hor fadhiya waa dadkii dhalay amba aan wada dhalanay marka wanaagoguna waa wanaaggeega dhibaatada qabsataana waa dhibaatadeeda weey marka saasaynu isku wareysan doonaa su'aasha marka waxaan jeclaan lahaa waxaan jeclaan lahaa asbaqal adeega dawladda hadda dhegeysta asmaqalno waxaan odhan lahaa feri waxaynu maanta ku wada hadlaynaa waa tiix ya mahigaankii ha dhaco dee markaan wadanka soo mareen adduunyada arkeen dadkii la sheekaysteen dowladdeed saragnay salaadiintana saragnay dhalinyarada jaamacaddana saragno waa mahigaanka markaasaynu si ballaaran u wada hadli doono waad mahadsantihiin بسم الله الرحمن الرحيم waxaan doonayaa inaan dhowr kalmadood idin idhaaho faallada iyo su'aalaha culculus iyo sheekada mawjadaha dhaadheer iyo waxaas way noo dambayn doontaa oo de ma anigu bari ma noqonayo waan joogayaa in muddo ah wadankana waan ku soo wareegi doonaa marka kubadda ciyaarteedu waa gelinka dambe marka wax badan baa inoo dhinaan doonaan maanta inaan halkan ku dhamayn karayn
waxaase doonayaa inaan dhowr amurood idin taabsiiyo iska dabna qoysa dee ta ugu horeysa waxa weeye horta madaxweynaha waddanka oo casuumadda siiyey inaan ka guddoomay inaan mahad weyn u jeediyo madaxweynaha waddanka somaliland ayaa ugu horeeya in salaantana aan ka gaarsiiyo mahadnaqana aan gaarsiiyo iyadoo ummaddu maqlayso xafiiska madaxweynaha xirsi wasiirka madaxda ka oo shaqada hawl isaguna qayb weyn ka galay isagana waxaan doonayaa halkan mahad weyn inaan uga jeediyo saaxiibkay iyo walaalkay wasiirka galjire oo madax u ahaana dadkii qabanqaabinaya arrintan oo isagu gacanta ku hayana waxaan doonayaa si weyn inaan u salaamo aan uga guddoomo aad baa dadku isku soo dhibeen aniga way damaqday way taabatay hadalku waan jecelahay inaan hadlo laakiin caawa waxaad moodaa hadalkii inaan xoogaa ku marganayo sababtuna waxay tahay dee wax dhaqaajiya ayaan arkay oo dadkaagii soo baxay waa wax sharaf weyn leh waxaad kaloon jecelahay inaan ku daro salaanta ambasador dr maxamuud jaamac sifir oo halkan aan joogin oo isaguna ka mid ahaa dadkii qabanqaabadan aad u bilaabay oo sheekadii ugu horreysaba isaga ayayna dhex martay ina lama joogo caawa nairobi buu hawl qaran ku leeyahay ku hayaa laakiin salaanta isagana inaan gaarsiiyo iyo mahadnaqa ayaan doonayaa waxaan raacinayaa intaas dadka sharafka leh ee diyaarad intay soo kaxaysteen berbere yimid oo dadkii baarlimanka ku jiray ay ku jiraan guurtida dadkii ku jiray ay ku jiraan dhalinyaradii ay qaar ku jiraan salaadiintii ay ku jiraan dadka diyaaradda soo kiraystay ay berbere iigu yimid anu waxaan islahaa baabuurka xagga dambe aad soo qabsatid baan islahaa waxa weeye waa arrin aad iyo aad ii taabatay waa iyaguna way mahadsan yihiin dadkaas sharaf kale ee halka iigu yimid iyo dee intiina ballaaran ee dee halkan airportka u soo baxay rag iyo dumar iyo dhalinyaro cid walba leh iyadana idan salaamo ayaan aad u jecelahay sababta anigu aan u imid somaliland sababo badan baa jira laakiin ta ugu weyn baan doonayaa inaan idin sheego haddii ay su-aashaas idinku jirtayna dee anu mar baan ahaan jiray wariye marka dayna waxoogaa idinka horeeya laga yaabaa waxa weeye horta dee wax kaa weyn markaad u timaado adiga qof ahaan wax kaa weyn markaad u timaado laba amuurada kugu waajiba kow waxaa kugu waajiba inaad dhegahaaga furto oo dhegaysato waa wax kaa weyn ayaa ku hor yaala iyo inuu afkaagu xidhnaado oo aad attentionkaagu au saaran yahay dee waxaa kaa weynee ku hor yaala sidaad u fahmi lahayd ee aad u dhegaysan lahayd waxaa weyne muxuu yahay somaliland waxay ahaan jirtay waddan ayay ahaan jirtay intaan gobonimada la qaadan waddan bay ahaan jirtay oo magacu shalay muu dhalan magacu waa dad baa jira qaran baa jira madax baa jira dee marka intaasiba aniga way iga weyn yihiin oo dadkii aniga ay dhalay jad oon taaban karo halkay ku aasan yihiin ugu yaraan 200 oo sannadood ayaa ku aasan somaliland magaalada gabiley agteeda ku aasan dee marka dadka dowlad sidaasa iyo ummad sidaasa iyo dadkii ku dhalay kuwii waqti hore tegey laakiin dee dhiigoogii iyo maskaxdoodii iyo ficilkoogii kugu jiro markaad u timaado iyo ummaddaa ballaaran ee somaliland ku nool aniga wax iga weyn weeye marka waxa igu waajiba inaan derso inaan dhegaysto inaan la sheekaysto inaan noloshoodu siday tahay hamadoodu siday tahay inaan si wanaagsan u fahmo wax badan xagga caqliga iyo maskaxda waan ka ogaa wax badan baan waddanka ka qoray dee waan ku dhashana waddanku haddaad ku dhalatood ku ababtayna wax ma aha waxaad iloobi karto laakiin waxyaabo badan baa iga dambeeyey marka inaan dhegaysto oon xabaalihii soo siyaarto oon qulwallaha u akhriyo salaadiinta iyo baarlamaanka dadka ku jira iyo dowladda madaxdeeda aanu si wanaagsan u sheekaysano anna war baan buuxaa oo adduunyadan wax badan ka oga soo hadda maalkan halkana war buuxa ayaa yaala laakiin horta waxaan ka horeynaa idinku inaad ii warantaan anigu waxaan ku tala jiraa anigii intay la socota in aanu saylac ilaa ceerigaabo marno ayaa brograamka noogu jira hargeysa iyo gebel iyo boorama uun ma aha dhulku wuu ka ballaaran yahay intaas in markaa jaamacadihii lala hadlo dadkii lasoo arko waxay ku nool yihiin everyday life noloshoodu siday tahay si markaan halkan ka taga dee adduunyada aan uga warramo dadku siday yihiin iyo noloshu siday tahay iyo hamaddu halkay gaarsiisan tahay iyo waxa lala qaban karo warka buuxa waanaad haysaa haddaad doonaysid inaad adduunyadii la sheekaysato marka horta sidaasaan u imid aad iyo aadna mar labaad aan ku celiye waxaan mahad u jeedinayaa dadka madaxda wasiirka labada wasiir
ay hor socdaan cuqaasha salaadiinta iyo baarlamaanka dadka madaxda ka iyo meeyarada magaalada iyo dhalinyarada iyo rag iyo dumar halkan u soo baxay dadka aanu iskuulka ku wada jirnay camuudan kubadda wada ciyaari jirnay baan maanta arkay anigoon 40 sanadood ku dhowrag marka de wax qalbiga uu garan karo miisaanka caynkaas weeyo afku aanu buuxin karin marka intaasaan doonayaa inaan idhaaho kugu horeysiiyay anigu isdhegeysta ciidciga BBC arrin essential ah jirta wariyana wadahan jirtay baarlamaankii miyaad iska cashisay Soomaaliya number 2 Somaliland in badan baad wada ogeedo oran jirtay war inaguma filno walaalkeeno bukayeenu ka tagine Soomaali weyn aynu baadi doonee imanka ma waxaad u soo jeesatay goonistaga Somaliland laba su'aalood weeye su'aasha hore horeba waan u sheegay idaacadaha laga sheegay waraaqdii aan qoray waa la sheegay anigu bari hore markaan ka soo noqday xamar bishii October baan xamar ka soo noqday baarlamankii markaan arkay hawshiisu siday tahay dad wanaagsan way ku jiraan baarlamanka oo aqoon leh way ku jiraan oo sharaf leh laakiin 257 aan markaan arkay sida uu shaqeynayay nidaamka yaala hawlo kale ayaa lagu jiraa hawlo qaran ma arag inteeda badan anu waxaan jecelahay hadii aan madaxda ka noqonay madaxdeeda ama madaxweyne baan isku soo raxay inaan wax ka qabto oo wax ka saxo dhibaatooyinka ugu waaweyn halka yaalaan waa biyo la'aanta cudurka gaajada wadooyinka xunxun shaqo la'aanta dhalinyarada haysa hawlaha caynkaas weeyo ummadii halkay ka kacdo aan bay ku jabto marka baarlamaanka anigu sidaas ayaan uga tagay gudoomiyaha baarlamaanka muqdishona waan u sheegay warqadii way qoran tahay taas waa taas oo waa la ogyahay adduunyaduna way ogtahay iduguna ay ogtiin baan ayaan filaya Somaliland arinteedu waxa weeye arin aan marnaba indhaha laga qarsan karin anigu intaanan iman muddo badan waana la doodaa Somaliland oo xaq baan in la doodo waayo wadankan ku dhashay way wadankuna xaq buu leeyahay xaq baan ku leeyahay marka doodaas way noo socotay laakiin anigu intaan hadlayay hadda dib u baadhaan waxaad garan doontaan in had iyo jeer ku dadaalayay adduunyada horta inay u garto Somaliland waxay qabsatay in loo garto ya oo aan meel kale loo soo marmarin iyada directly loola hadlo dadkan waxay qabsadeen iyadoo adduunyada hareeraheega ka xigtay burbursan tahay burburayso waxay qabsadeen in loo garto deetana abaalkeegii la siiyo anu 20 sanadood ayaan arinta ka hadlay waana qoran tahay waxaan maanta cusub oo soo saarayo ma aha waxaan sa jecelahay madaxda Somaliland iyo ummadda Somaliland warkooga horta inaan dhageysto waxaan idin war baan buuxa anigu wadankana war buuxa ayaa yaala oo ballaaran oo gundar nin reerkiisii ku soo noqday horta inuu dhageysto reerkii waxay ku hadlayaan sida yihiin ayaa waajib ah aan wax ku qaato aniguna waxaan ku dari karaya aan ku daro laakiin anigu kolleyba Somaliland meel aan kaga tagi karaana ma jirto siday doontaba ha u dhacda adduunyadu waa halkii Ilaahay iga abuuray dadkan soo hor fadhiya waa dadkii dhalay amba aan wada dhalanay marka wanaagooguna waa wanaaggeega dhibaatada qabsataana waa dhibaatadeeda weey marka saasaynu isku waraysan doonaa su'aasha marka waxaan jeclaan lahaa waxaan jeclaan lahaa asbaqal adeega dawladda hadda dhegeysta asmaqalno waxaan odhan lahaa feri waxaynu maanta ku wada hadlaynaa waa tiix ya mahigaankii ha dhaco dee markaan waddanka soo mareen adduunyada arkeen dadkii la sheekaysteen dowladdeed saragnay salaadiintana saragnay dhalinyarada jaamacaddana saragno waa mahigaanka markaasaynu si ballaaran u wada hadli doono waad mahadsantihin